السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa xasna waxaan rabaa inaan idin sheego ninkayga iyo jiniga sheekada dhex martay. ninkayga waxa uu ahaa mid habeenkii asxaabtiisa la baxa wuxuuna soo laaban jiray marka la gaaro salaada subax. marka hore waxaan ka shakin jiray inuu khiyaanayo laakiin wuu inkiray wuxuuna ii sheegay inuu fadhiisto waadiga magaalada ku yaala. cali oo hadalka aad ku hadlayso cid ka rumaysanaysa ma lahan. aqligal miyaa qof xaasla ah caruurna leh inuu guriga ka maqnaado ilaa salaada subax. waad ogtahay idinka dartiina inaan shaqada ugu soo daalo mana haysto waqti kale aan asxaabtayda la qaato ilaa habeenkii mooyee. sidaa ay tahayna hadalkiisa ma rumaysanin ee waxaa batay shakigayga waswaaskaygana waa siyaaday. marka saacadda ay noqotay 8 saac habeennimo ayaan wacay. hallow cali, guriga ma ku soo laabanaysid miya? wuxuu igu dhahay asigoo qoslaayo weliba aan ka dhex maqlaayo codadka asxaabtiisa. xaaskayga qaaliga ahayd ma ii xiistay? caawaha isugin waan soo daahayaa. talka ayaan xiray markaan hubsaday inuusan naag la joogin. sariirteeda ayaan seexday ileen waxaan ogahay inuusan hadda soo laabanaynin. nus saac kadib ayaa albaabkii bannaanka si xog leh la soo garaacay. yaa saacan albaabka soo garaacayo? albaabka ayaan furay waaba cali oo wejigiisa cabsi ka muuqda. khayr sheeg, maxaa kugu dhacay? codkaaga hoos u dhig si uu qof kale noo maqlin ee kaalay qolkeena noo wad si aan kuugu sheego caawa wax la yaab leh ayaa nagu dhacay. dhinaciisa ayaan fadhiistay. maxaa kugu dhacay? sida caadada noo ahayd aniga iyo asxaabtayda waxaan fadhiisan jirnay waadiga agtiisa. midkeenana muusig cod dheer leh ayuu noo daari jiray. waxaan maqalnay codad ka imaanayo waadiga hoostiisa waxaana ku soo xigay dhagaxyo oo dhinaceena loo soo tuuraayo. dhammaantayna waan istaagnay. dhagaxaantii ayaan soo qaadanay mar kale ayaan anagana ku tuurnay waadiga hoostiisa. codadkii ayaa sii batay. waxaan maqalnay cod aad u weyn oo aad u malaynayso qarax oo kale. kadib waxaan aragnay waxyaabo madmadow oo socsocda. guryahayna ayaan u soo roornay. idinka ma waalateen? waxaa laga yaabaa walaalaheena jinayaasha inay yihiin. deganaanshahooda ayaad ka qasteen. waadiyaashana waa guryahooda runta ah. inta uu isdaboolay ayuu igu dhahay idhaaf aan seexdee aad ayaan u daalanahay. si fiican ayuu u seexday. subaxii ayuu soo kacay waxaana ku dhahay sida aad xalay samaysay mar kale ha ku celinin. arrintaas khatarteeda ayay leedahay. ilmo oo wax loo sheegayo ma ihi. adiga haddaadan iska fikiraynin ilmahaaga ka fikir. asxaabtaada doob waaye laakiin adiga qos ayaa kaa dambeeyo. hadalkayga waxba kama dhigan. boorsadiisa ayuu iska qaatay shaqadiisa ayuuna iska aaday. maalintii si dhaqso leh ayay ku dhammaatay laakiin cali weli shaqada kama soo laaban. caadadiisa waxa ay ahayd shaqada inuu ka soo laabto ciyaalkiisa waqti la qaato cishaha kadibna asxaabtiisa aado. waan wacay si aan ugu warqabo. hallow cali, see tahay? aniga waan fiicanahay. caawaha isugin waadiga ayaan joogaa. waan soo daahaa salaada subax ayaan imaanaa. talka ayaan damiyey. qalbigayga waxa uu ii sheegayay wax cun in ay jiraan. mana maqlin codadka asxaabtiisa laakiin waxaan maqlay codad kale oo la yaab leh. waxaa laga yaabaa waadiga inuu joogo. meeshii mayuu mar kale ku laabtay. maalintaas sidaas ayay nagu dhaaftay. maalinba maalinta ka dambaysa dhaqanka cali buu isbedelayay. habeenada ka mid ah waan seexday waxaana ku soo kacay subaxii asigoo qolka soo galaya. intee jirtay? qoraxda waxay soo baxday adoo guriga ka maqan. iga daa, waa daalanahay. maraba inaan maqlo hadalladaada aan dhammaadka lahayn. sida caadada ah maalin kasta waa daalan tahay. qoys ayaad leedahay. nin yahow ilmahaaga ayaa kuu baahan inaad waqti la qaadato. adiga hadalka badan ma joojinaysid. idaa aan kaanaste. cali sidaas ayuu kusii socday. habeen walbana wuu soo daahi jiray. midaasna waxay sababtay shaqada inuu ka daaho sidaasna shaqada loogu soo buriyo. ilaa iyo intee ayaa sidan sii ahaanaysaa? aniga iyo ilmahayga ayaad mas-uul naga tahay. shaqo kale raadi oo aad nagu biisho. lacagta aad haddana siinayso way dhammaanaysaa. aniga idinka dartiina ayaan haween walba u dhafrayaa. hadafkaygana waa inaad nolol wanaagsan ku noolaataan. looma baahna shaqo kale inaan raadiyo. mar dhow hanti aad u badan ayaan heli doonaa. nolosheennana way fiicnaanaysaa. laakiin wax yar isug inta aan ka helayo waxa aan raadinayo. intay ka keenaysaa hantida badan aad sheegayso? bangiga maad soo dhacaysaa? meeshaan ka keenayo iska dhaaf. hana soo dhexgelin waxaan samaynayo. wax kastoo aad adiga rabtid waad helaysaa. qolka ayuu galay. albaabkana si daran ayuu u soo xiray. habdhaqankiisa ayaan la yaabay. gaar ahaan markuu ii sheegay sheekada hantida badan uu ku fikirayo. maalintii xigtay
waxaan go'aansaday inaan dabagalo. Maalintii wuu seexan jiray, cishaha kadibna wuu bixi jiray. Salaad iyo qur'aan akhrintana wuu iska dhaafay, xitaa nadaafadda nafsadiisa ayuu iska dhaafay. waxaan kaloo arkay musqusha marka uu galo inuu kusoo daahayo. albaabka ayaan u gargaraacay, waxaana ku dhahay, cali ma xanuunsan tahay? wuxuu igu dhahay, maya, hadda ayaan soo baxayaa, inaad ii cabsato looma baahna. maalin aanan albaabka garaacin ayaan ku furay saan u ogaado waxa uu samaynayo. dhinaca derbiga ayuu u jeeday, dad ayuu la hadlaayay. waxaan ka maqlay asigoo dhahaya, sida caadada inoo ah, caawa ayaan kulmaynaa, mana soo daahayo. asigoon i filanaynin ayuu i arkay, wuuna naxay. maxaad iga rabtaa? gurigan raaxadayda ma ku qaadan kari miya? dabagalkan iyo sida aad ila dhaqmaysa ayaan kugu dhibsaday. horta adiga ma caafimaad qabtaa? dhowr jeer ayaan kula hadlay, waadna i maqli weyday. waxaan u malaynayay in ay wax xun kugu dhaceen. wuu iga tegay asigoo ganuunacaya, mana u sheegin hadalkiisii inaan maqlay. maalinta ku xigtay waxaan go'aansaday inaan daba raaco, soona arko habeen walba meesha uu aado. inkastoo aan cabsanayay, haddana waan isdhiiriyey. ilaahay ayaan tala saartay. habeenkii ayaa la gaaray, wuu baxay, anna gadaashiisa ayaan ka daba baxay, weliba anoo si tartiib ah u daba socda ilaa aan ka gaaray waadiga magaalada. meesha mugdi ayay ahayd, cidna ma joogin. waxyar kadib waxaan maqlay cali codkiisa asoo ku hadlaya waxaan la fahmaynin. waxay ahaayeen erayo la yaab leh, weligay ma maqlin, iyo saaxiriinta waxay ku hadlaan. waadiga hoostiisa ayaan nuur ka soo baxay, meeshii ayaan u dhowaaday si aan u maqlo waxa ay sheegayaan. si lama filaan ah ayuu nuurkii u baxay. cali ayaa isoo fiiriyey, iguna dhahay asoo xanaaqsan, meeshan maxaa ku keenay? yaad la sheekaysanaysaa ayaan ku dhahay. maxay yihiin waxa aad samaynayso? ilaa iyo hadda waxa aan shaqadaada ahayn ayaad i weydiinaysaa, laakiin waad ka shalaayi doontaa. markaan soo baxnay ilaa guriga aan ka tagno ayuu i canaananayay. guriga markaan gaarnay ayuu igu dhahay, waxaad aragtay haddaad sheegto waan ku dilaa, laakiin wax kasta inaad ii caddayso ayaan rabaa, haddii kale carruurta ayaan wadanaa, waana kaa tagaa, mar kalena mana arkaysid. balanta aan soo qaaday kama bixi karo. maalinta ay munaasabka ku tahay ayaan kuu sheegayaa wax kasta. waxa aad maanta aragtay ayaa kugu filan. markaas ayaan ogaaday ninkayga habeenkii inuu jiniga la kulmo, laakiin waxaan ogaan waayay sababta uu ula kulmo iyo waxa uu ka damacsan yahay. si kastaba ha ahaatee, waxaan rabaa inaan ogaado wax kasta uu damacsan yahay. sidaan u ogaadana waxaan u baahanahay cadeymo dhammaystiran. asxaabay, si aan u ogaano cali waxa uu ka damacsan yahay la kulanka jiniga, la socda qaybta labaad ee sheekada. haddaad janalka cusub tahay, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto.